عنبي إلك عنبي عروة منتبه عروة منتبه. السلام عليكم ورحمة الله. داوديال كسر دوادا برنامجكي هوري أنو شاعيني أنو قلت لقلي إن كسر أرنو تاريخ تحديقها كبدا عكت سومري سومالي لاند iyadoo aynu wada ognahay 15 bishan aynu ku jirno inuu ku dhawaaqay wasiirka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliland mudane boos Mire Maxamed in dhawaan la qabanayo bisha dambe 30keeda ciyaarihii gobolada. Haddaba waxaan maanta nasiib u helay oo ina soo booqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada 2002 isagoo markaa hogaaminayay xulkii gobolka Muradjeex Faysal Muuse Ildab Faysal dheer ku soo dhaw barnaamijka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. aaga sports media oo uu daadiyay kay qadar wad mahadsantiin waana dhaway barnaamijku waan ku dhaway Faysal aad mahadsan tahay inta aynaan bilaabin taariikhda kubadda cagta ee ciyaaraha iyo sooyaalkii taariikheed ee macallin Faysal waxaan doonayaa inuu wax yar inooga taabto taariikh nololeedkiisii ciyaaraha ka hor ruuxantii haddaan taariikh nololeedkiisa kooban soo uga warramo anigu magaalada Hargeysa ku dhashay ilaa intan leeyahay dhinac ugama bixin haddaan taariikh nololeedkii kubadda amba ciyaaraha ku soo dhawaado run ahaantii aan ciyaaro badan ayaan ciyaari jiray sida ciyaaraha gacmaha kolayga volleyball cagta in badan baan soo ciyaariyay kubadda ciyaaraha ku soo dhex jiray ilaa inta garaadistay ciyaaraha ku soo dhex jiray haddii aynu usii dhaaracno wareysigeena mudane macallin waxaa jirta xilligii dawladda Soomaaliya tartanka ciyaaraha gobolada ka dhici jiray 18 gobol waxay hayn qaar aad u xamaasad badan waxaad kamid ahayd ciyaartaygu u safan jiray gobolka Waqooyi Galbeed gobolkan oo marka ay caasimad u ahayd magaalada Hargeysa ciyaaraha marka loo eego gobolada kale xageebu ka taagnaa run ahaantii ciyaaraha gobolada Soomaaliya haddii aan isdul taagno Soomaaliya waxay laba qaybood oo isu tagay 60kii ay ahaayeen run ahaantii laba dhaqan oo kala gooniyana way kala leeyihiin marka ciyaaraha loo eego dadka reer waqooyiga ama dadka reer Soomaaliland run ahaantii waa dad aad u xamaasad badan marka loo eego ciyaaraha activity-gooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo xagga spiritka ayaad moodaysaa inay kaga horeeyeen koonfurta Soomaaliya waxa kale oo iyana jirtay inay tirsanayeen goboladan Soomaaliland ka tirsan oo markaa hore Soomaaliya isku oran jiray in mar walba cadaalad darro tirsanayeen oo mar walba laga yaxdo marka spiritkoodii iyagoo cadaalad darro badan tirsanaya ayaa waxay keeni jirtay inay yimaadaan kaalmaha koowaad ciyaarahoo dhan run ahaantii anigu waqtigii Waqooyi Galbeed ama gobolkan Muradjeex leeyahay aanu ciyaar jirnay ciyaaro badan baan soo ciyaarnay anu inkastoo kubadda cagta safan haddana kulliba laakiin gobolka ilaa 2-3 jeer waan soo raacay kala duwaashoona waa sida ay labadooda dhaqan u kala duwan yihiin ciyaarina u kala duwanaayeen iyagoo run ahaantii facilities badan haysta oo waxyaalo badan dawladii Maxamed Siyaad Barre ay u fududeyn jirtay ayay haddana gobolada Togdheer iyo Waqooyi Galbeed iyo oo maanta Soomaaliland inta la isku yiraahdo ay mar walba kaga horeeyeen xagga ciyaaraha spirit ahaan iyo xirfad ahaanba xilliga kadib laga bilaabo 1990kii dabcan Soomaaliland oo xukuumadeena ayaa muxuu ahaayay dib u asaasantay oo dib ugu dhawaaqnay waxa bilaabmay tartan Serie A ka bilaabmay Hargeysa waxa inkastoo bariga ay iska yareed muxuu ahaayay meelaha lagu ciyaarayo iyo waxyaabaha lagu qalabadu iska yareeyeen waxyaabaha lagu ciyaarayo haddana kooxo badan baa jiray oo kubadda cagta aad ugu wanaagsan oo xilliga muxuu ahaayay ciyaari jiray kooxaha ka xasuusta intayna horta dalka gudihiisa soo galin waxa jirtay waynankii dibadda joognay dadkeenu ay Itoobiya magansadeen dhalinyaradii halkaa joogtay run ahaantii wixii aan dagaalka tagin xiriyaha joogay iskama fadhiyi jireen wax isku diyi jireen ciyaaraan anu waxaan ku xusi karaa inaanu joognay magaalada Xarshin waxaan ka asaasay teamkaas oo la ciyaar jirnay Itoobiyaanka wiigiiba 3 sano la ciyaar jirnay run ahaantiina ciyaarteeda aad bay u jeclaayeen waxa marmar noo iman jiray bariga Itoobiya in Xarshin oo inaga iman jireen daroor iyo ramasiyo dhalinyaro badan oo iman jirtay la ciyaar jirnay dhalinyaradii waqtigan ciyaar jirtay waxaan ka xusi karaa Cabdi Guray oo ahaa in halyeeyadu ugu cadaaday Hargeysa markii la soo galay soo maray oo kooxda UNICEF u ciyaar jiray
kolley waa layga aqoon baday kooxahaas kuma xusuusto laakiin cabdi gurey rag badan oo markaan halkaa ku soo leyliyey ayaa hargeysa markii dambena soo galay in ninka loo odhan jiray xaaji oo dhintay rag badan baa markaa xarshin ku ciyaari jiray markaa dhallinyaradii soo gashay ee markii dhulka la xoreeyey ilaahayna siiyey dhallinyaradii dusha ku ciyaaraysay magaaladay soo galeen kooxay abaabuleen kooxii magacyo badan bay soo magacyay lahaayeen magacyo badan oo markaa kusoo development garoobaya amba tatawar soo samaynaya kooxii runtii waxaan kasii xustaa NDC dan kasii xustaa waxaan kasii xustaa oo kale patrolkan kasii xustaa MBB dan kasii xustaa Star Oncode UFO way adigu jiilal badan oo soo daba socdo run ahaantii aan oran karo raggii kubadda ugu fiicnaa waqtiga ugu fiicnaa ee la soo maray ayay ahaayeen haddii aan isdul taagno xilliyada aanu ka sheekaynayno kooxaha Soomaaliland ugu horeeyay waxa sidaad sheegtay macallin ka mid ahaa Oncode Al Nassr muxuu hayay UFO iyo NDC afarta kooxood ugu adag bay ahaayeen ciyaartoyda bariga hormoodka ka ahaa waxa ka mid ahaa NDC oo kale Mustafa Malla Zenawi Allahu naxariistay Mukhtaar Xamarow Oncode oo kale Cismaan Laba Qori Jibriil Sambalo Shees Ciid Cawil Cabdina Jaxsiyaad UFO oo kale Saleebaan Daahir Baasha Dheere Kayse Kabaadi Cali Fagaase Ganto Al Nassr oo kale Gaabuush Maday Weli Libaax Cabdiraxmaan Dhagaweyne wuxuu ahaa tartan aad u qiimo badan baa dhici jiray ciyaartoyga maxaad ka xasutay ciyaaraha ciyaar jireen run ahaantii waa run intaad soo tirsoo dhanba waxay ahaayeen tiimamkii waqtiga aad loo daawan jiray kubaddooduna farsamadooda aad u sarreysay run ahaantii tiimam kala dhaca runtii may ahayn waxaan ka xusuusan karaa dhallinyaradii berigaa ciyaarisay mukhtaar ilaahay u naxariisto ahaa difaacyada ugu wanaagsan ee waqtigaa ciyaarayay weli axmed xaawaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa insan balooshe jibriil sambalooshe run ahaantii aan odhan karo weeraryahanadii waqtigaas soo maray sida Messi oo kale ayuu uga dhex muuqday waxaa kaloo jiray tiimkan UFO waxaa ka mid ah cabdi xaaji oo isna difaaca ka ciyaari jiray oo maanta aan u malaynaysan inuu xanuunsan yahay caafimaadkiisa uu soo celiyay rag badan oo aan la odhan karin nin ka dhaca may lahayn dhalinyarada waqtigaa joogtay dhalinyaro dhisan jir ahaan xirfad ahaan aqoon ahaan isluub ahaan ayay ahaayeen garsoor kastoo qabtana way ku kalsoonaan jireen halka aad maanta mooday waqtiyadii ka dambeeyey in garsoorka uu xogaad mooday in pressure badan la saarayo oo halku inanku ka saari lahaa ciyaartiisa xirfadiisa soo bandhigi lahaa uu garsooraha isku soo buuxinayo nimankaas niman aan oran kara berigii xul haddii laga xulo Ethiopia iyo Djibouti way iska celin karayaan aan oran karaa naadiyadaasi waxa ay ciyaarahoodu ay ciyaari jireen muddo ilaa 12 sano muddo lagu qiyaasay 12 sano kadib marka laga bilaabo 1990kii waxa bilaabmay tartankii ugu horeeyay ee loo qabto gobolada Soomaaliland xilligaa waxaad ahayd tababarihii markaa hogaaminayay xulka gobolka Maroodijeex oo caasimadiisu ay tahay Hargeysa waxaad ahayd tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleysta koob loo dhigo gobolada maxaad ka xasuusataa taariikhdaas waad mahadsantay khadar ruwaantii sidaad sheegtay weeyaanoo waxaan ahaa tababarihii ugu horeeyay gobol 6 gobol ee Soomaaliland ee bayska u ah loo dhigay waana tartankii koowaad ee si official loo qabto markan dib ugu yar noqdo ciyaaraha gobolada intaan la qaban maxaa jiray su'aasha isweydiina wataa waxaa jirtay tiimamkii imika ka soo sheekeynay Al Nassr lahaa Oncode lahaa UFO lahaa tiimamkii nooca ahaa challenge patrol kale challenge jiray maraaxil badan ayay soo mareen kooxadan baa ka dambeeyay waxaa jirtay waqtiyada ka mid ah in la yiri waxay nagu yar badatay caadifadii xaafadaha amba qabyaalada run ahaantii qabyaaladii kubadda cagta amba ciyaaruhuna aad bay u kala fog yihiin waran cadda ilaahay cimrigiisa dheerey wasiirkaas iyo rag badan oo lamida iyo taliyihii booliiska waqtigaa joogay maxamed siiban jecel la oran jiray rag badan oo noocaas oo markaa mas'uuliyiintii dalka haystay ayaa fikradda keenay anuguna runtii waa la garab galnay dhalinyaradii waxa loo qaybiyay naadiyadaas oo loogu horeysiiyey tiimka la yiraahdo Goodir ee maanta ilaa hadda jira iyo tiimka Gaashaan la yiraahdo isna ka yar horeeyay waxoogaa bilaa labada tiim ayaa kooxii nimankii markaa xarfaanta ahaa afarta kooxoodba lagu ururiyay nasiib wanaag waqtigaas ayaana la kulmay ciyaaro gobolada koowaadna la kulmeen Cabdirashiid Caydiid oo ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ayaa ruuxantii yimid wuxuu waxaan doonayaa Hargeysa maanta maadaama Brasabkeedii iyo Maayarkeedii iyo aanay u dhundulay arrimaha noocana waxaan doonayaa Faysal kooxda qabato oo aad Hargeysa maanta caasimadii aad maanta ay miqaamkeedii aad gaarsiiso in badan baan diiday markii dambe waan ka aqbalay Cabdirasaaq Axmed aadan laftigiisa waxa xogeeyaa xiriirka waqtiga waxa jiray Olympic shaqeynayay khadrow oo runtii Olympic la oran karo maanta goboladan jaarkan ay u dhigmayay ilaahay maanta ilaahay raali ka haday Maxamed Irro
oo runtii oran karo waan khabiir kubadda cagta ciyaaraha ayaa keenay fikradda in aanay shaqaynayn wasaarad iyo siyaasadii laakiin olympic iyo xidhiidho maanta aynu wax ku heli karno ninkaas ayaa arrinkaa keenay waan loo garab galnay xidhiidh iyo waxa abuurmay olympic xidhiidhkii markaa waxay idhaahdeen maadaama aan arrinkii aanu imka abuurnay faysal waxaanu doonaynaa inaad adiga lagu magacaabo sidaasaan horta ku qabtay ciyaarihii gobollada waxaana ii suurto gashay nasiib wanaag inaan ka soo xulo labadii tiim oo wakhtigaan odhan karin ragga ugu cadcad bay ahaayeen ayaan inta ugu badan ka soo xulay waxaa kaloo labeynayay tiimamka kooxa la odhan jiray iyagoo laftigooda ku soo daba jiray nuuradiin koox kale odhan jiray nafta la odhan jiray koox la odhan jiray albaraka la odhan jiray aduu kooxo badan oo noocaas ilaa 6 kooxooda ayaa challenge garin jiray labadaa kooxood laakiin waxay u badnaayeen xulku labadaa kooxood ahaa niman aad u dhammaystiran dharar ahaan jir ahaan iyo ciyaar ahaanba sidan xasuusto labada kooxood gaashaan iyo goodir waxa ay iska koobnaayeen 4 naadi ee ugu dambeeyay oo laga xulay oo kala ahaa NDC Sooyaal MPP iyo Harry Star كل اللاعبين فربضان بمعلن صديق شكتي سوقي مثل لبضع كروحات واحد kala soo baxaysay xul kaliyaata oo ka qayb gala gobolka Maroodijeex buha nimanka meesha marayna niman isu dhigmay ahayn sidee bay kuugu fududaatay inaad hesho 12 line aba oo aad ku daqal gasho run ahaantii marka Soomaaliland imka eegto Soomaaliya waqtiyo badan bay soo martay maraaxil badan bay soo martay oo siyaasiya waqti waxa jirtay qabyaaladu shaqeynaysay waqti waxa jirtay aqligu shaqeynayay waqti waxa jirtay ninka maanta fikiraya ee aragti dheer loo arkay nin waalan mar walba adigoo wacyiga jira ka duulaya waxaan mar walba ku bees gareynay cid kasto maanta Hargeysa in kasto magaalada Hargeysa intaan ay ka yareyd degmo kasto Hargeysa kamid in horta dhalinyaradeedu ay ka muuqato koow waxay noo ahayd priority adigoo inta laga tagayn haddana dal oran maayn in aan kubadii garanay soo qaade adigoo degmadii iyo deegaankii eegay haddana waxaad ku bees gareynaysaa adoo ku bees gareynay arrinka haddana laacibiinta meesha ka soo jeeda inta ugu wanaagsan ee aan la oran karo waa lagama daaban karo ayaan soo qaadanay runaantii ilaahayna nagu guuleeyay waxada loo keeyay jirin wax buuqo naga yeemay jirin kooxaha kale ee markaa jiray iyagu aan ku beeskarin arrimaha noocaas wax jiray kooxaha kale ku sheegay sida midalan albarakaad irshaad nafta nuuradiin waxaan ka soo qaaday nimadii ugu wanaagsanaa oo ugu tala galnay markii nimankan kale waawin ka baxaan inay iyagu hadhow midalan ama macalinka iga dambeeyo oo qaatay iyagan in baan ka soo qaadanay وانا رجي كميدا عمر سيد با كميدا شابيل با كميدا عودا كميدا رج بدن نوع صوت دليرو يرير أيام كصوت الرئيسي ويرجنمو وجهلان سنة دم اللي نمدا ونبيش وكبح يعني تاسع مركا وإلى هاي النوف دي أساس إنه نقص صوتكش. عيارتي جدا بيسي واحد كوكولي ستركوب كم حصة عدة وضع عيارتين النتيجة كلها ماتي. رنا هانتي هذا نكون نقطة كوحدة لفتي كذا باك جراوند كذا واحد شرتي وقتي لقول واقع عيارها قبل هذا. anagoo ku jirnay muddo layligii iyo training-kii ayaa Ilaahay u naxariistay madaxweynaha Maxamed Xaji Ibraan Cigaal si kadis aan lagu sheegay anagoo tababarka ku jirna garoonka training-ka inay tiisi timid run ahaantii inuu xanuunsanay waan la soconay laakiin arrinkiinu sidaa u sii adeegay seeraysan ma ogeyn waayo kubad ma aan ciyaarnay haddii madaxweynaha xanuunsanayo laakiin madaxweynuhu baxay caafimaad ayaanu arkaynay galabnimadii 5 barkii BBC-da u bay dhalinyaradii anagoo tababarka ku jira ku yaacday halka trainerskan ku ciyaarinay maxaa dhacay maali Jibriil iyo rag kamid ah ay ku soo noqday waxay yiraahdeen macallin madaxweynuhu dhintay markaa waanu sunimid run ahaantii anigu macallin ma yihi dictator dhalinyaradii waan ka qayb galay waxaan ku maxaynu